xaruntan waxa isa kaashanaya dhismaheeda hay'adaha waxbarashada taageera iyo wasaaradda waxbarashada galmudug ayaa isa kaashanaya gaar ahaan hay'adda Care International oo halkan mashaariic badan ka wada deegaanada galmudug halkan ay dhisaysaa hadii Ilaahay yiraahdo gurigani waa gurigii waxbarashada dawladii hore qaybta Ariowa wuxuu noqon doonaa si ku meel gaar ah hadii Ilaahay yiraahdo meesha ay ku shaqeyn doonto wasaaradda waxbarashada oo markii ugu horeysay ay ku shaqeyn doonto meel ay dawladdu leedahay ama wasaaradda waxbarashada ay leedahay markii ugu horeysay insha Allah Dhoosmareeb meelii ka horeeyay guri kiraya la deganaa insha Allah waxaan rajaynaynaa ka bixi doona kiradaas halkana shaqo wanaagsan bulshada lagu qaban doono aad iyo aad baan maartay ugu faraxsanahay dawladnimadu waxay u agtahay sida uu akaan doono guriga dhisi doono dawladlaantuna waxay u agtahay sida hadda guriga la dayactirayo uu u yahay marka waxaan bulshada ugu dardaarmaynaa in la isku dulqaato dawladnimada la taageero aad iyo aad baan maasantiin waxaan ku soo dhaweynayaa madaxa xukuumadda mudane Sheekh Maxamed Shaakir alxamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du aad baan ugu faraxsanahay runtii inaan idin kala soo qayb galo munaasabadan xafladan qiimaha badan ee loo sameeyay dhagax dhiga xafiiska waxbarashada gobolka aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waxaana dhagax dhignay maanta oo taariikhdu tahay 12 bisha shanaad 2018 xafiiskii waxbarashada gobolka oo horena u lahaa jiray dhulkan waqtigii dawladii dhexe ee Soomaaliya dhulkii waxbarashada laga hogaami jiray gobolka waa dhulkan xafiisyo badan bay ku yeelanaysaa halkaan marka ma noqonayso wasaaradii waxbarashada ee wasaaradda meesheedii waa diyaar dhulkeedii waa diyaar xafiiskii waxbarashada gobolka laga hagi lahaa ayuu noqonaysaa wasaaraduna hadda wasaaradeeda ay la tartamaysaa dhulkeedii waa diyaar waana loo dhisayaa hadii alla idmo sida hadda loo dhisay madaxtooyada kale sida golaha wasiirada loogu dhisayo kale yaa xafiis walba loo hagaajinayaa waxaan u mahad celinayaa hay'adda gacanta ku haysa hadda arintan oo Care International oo arintan hadda gacanta ku haysa oo dhismaha fulinaysa waa uga mahad celinaynaa dadaalkeeda iyo juhdiga ay ku bixinayso inay waxbarashada tamantaabto kor u qaado dadweynaha iyo shacabka ka soo qayb galay munaasabadan qiimaha badanna ayakana waxaan leenahay waxa weeye horumar deegaanku uu ku tilaabsanayo shacabka iyo dhalinyarada maskaxdooda badbaadada la badbaadiyo waa ummadda badbaadadeeda marka badbaadadii ayay ka qayb qaadanaysaa arintan waana ku faraxsanahay aad iyo aad aan ugu gacan siinayna waana isu kaashanaynaa shacabka iyo maamulkuba inay gacmaha isqabsadaan iska wuxuu qabsan meel walba wax lagu qabto taasaan doonaynaa hadii Alle ma waana bilaabato waa socotaa waad arkaysaan dhismaha magaalada ka socdo dhan iska wuxuu qabso ayuu u badan yahay waxaan rajaynaynaa inaan si laban laabnaan rajaynaynaa